qof aniga xigaalkayga oo soo kala dadka boqolkiiba boqol kugu dhawaa waa dhibta markay dhacday waxaan ku horeeyay dharkayga waan u baahanahay markaa Hargeysa joogay niman dhalinyaro ah ila joogay wuxuu igu yiri hadda imika lugihii baad beeshay ma socon karaysid saraawiisha ma ka reebtaa يعني هذا كورة سكرية ولا الوقت كاغ شاكينيا قصooyinkeyga waxa laga yaabaa inay ilimku soo istaagto hooyadii aabahay haday maanta noolaan lahaayeen de meesha hadda aad ugu timid keligay fadhiyo ma fadhin lahayn waxa la yiraahdaa marmarka qaarna xiniyuhu kugu yaala ma ahana waa kuwa lagu barbar joogo yani shalay xiniyaan lahaa malihi laakiin hadii maanta iska bada aabahay hadii hooyadii noolaan lahayd aqabadaha nololeed keligay ma ahan lahayn يعني waxaan dareemi lahaa ila dareema ila xanuun noqdo xariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mardhugataa soo nasiibku ma dhaxo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصوماليات ميل بدوني كجوكتاني سكستو إيدا ونيسان وانيا ولالكين زكي يسيدو كلا مرتي آد وعلوس مرتي قيمة بدن مرتي قالي oo maanta ay ugu horeyso oo YouTube-kayga ka soo muuqanayo soo dhow waxa idin ka codsanaa hadii YouTube-kan aad ku cusub tahay inaad subscribe inoo saarto muuqaalkana aad sii share gareyso oo aad sii faafiso meel dheer aad gaarsiiso insha Allah soo dhow magacaaga aniga waa aqaana dadka isbar soo dhow meeshaada waaye soo dhow walaalkay aad baa u mahadsan tahay saaxiib sharaf bay tahay qofkii ugu horeeyay Malaysia soo raadiyay inaad noqoto inaan channel-kaaga markii ugu horeysay ka soo muuqdana farxad bay tahay dadka ku daawada baan ka mid ahaa laakiin waad ka soo muuqan isma lahayn intaana aad baad ugu mahadsantahay mudan wiilkan walaalkay ah intuunan idinkugu hormarin qisadiisa ama sheekadiisa walaalkay waxaan ku arkay TikTok laga yaabaa adiga hadii daawanaysid aboo inaad TikTok ku aragtay marka aniga TikTok aan ku arkay waa lagu soo mention gareeyay sida kulay inta ka arkaysaan ana la hadlay ana adigu soo raadiyay mafahmi ana raadiyay walaalkay waxaan la ii soo sheegay inuu wadanka Malaysia joogo marxalado kala duwan iyo xaalado kala duwan ee asaga ay yaani haystaan sidaas aan ku raadiyay hadda right now waa idin la hadlayo gurigiisa ka imaan yaani billi ku degay hoostiisa ugu tagay oo aan ka soo waday oo halka aan u keenay oo programkan aan u duubayna sideeda banaana de horta Soomaalinimada wax lagu yahay ma fahmaysaa Soomaalinimada isku dhiig isku dheecaan walaalnimada baa wax walba ka weyn ma fahmaysaa marka walaalkii soo dhawow intaan kaliya inaan wax ku qabto ma ahan ama aan dadka sheekadaada u soo bandhigo waxyaabo inta ka sii waaweyn hadii aan awoodo ama aan kari karo oo ku awoodi lahaa soo dhawow walaalkii sheekadaada iyo noloshaada iyo sidaan meelaha kaaga arkayna insha Allah hadda ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagto waa jeclaan lahaa aad baad u mahadsan tahay horta wax walba noloshada ugu qaalisan dadkuna intay wax isu yihiin bay wax walba mataqaanaa wadaagaan dadku kala qoomiyadaha ahaadaan laakiin magaca Soomaalinimada wada deeqa ugu horreyn magacayga saddexan waa Carafaad Saciid Maxamed sida TikTok ay ku qoran iyo baraha bulshada mana xanuunkana maaha mid aan ku dhashay wuxuu ahaa mid iga soo gaaray shil baabuur anigoo markaa ku jira hawl maalmeedkayga maalin laha ama shaqadeedii maalin lahayd wixii inta ka dambeeyay noloshu way isbedeshay waxay noqotay laba nooc oo kala duwan يعني صاحبك شلي الله هيد ملها نيسد فاملك شلي الله هيد ملها نيسد يعني نلوش هذا سيد هذا إنه وده عن سوبر النقلة صاحب بدي ظهر ويتجين صاحب عصب مرتي سيد هذا أديك أتكو كتاهي أحمد ولا بكي هاي لأن يرى هل كان شوك تاهي كم تاهي يعني هي قف وحجرة أم بقول واحد شو يمو يعني قف ككلام وحجرة كهاي هل رأى صومالي أنت بدن وعندك جراد له أنت مركع عارف ما قبتي ده ما تخانة نلوش هذا أي سلاك تاهي dad badan baad yeelanaysaa sidaad la socotana mahmaa waxa jirtay inta aad faraxsantahay nolosha adduunyada iyo cid walba way ku qoslaysaa laakiin dhibtu markii ay ku gaadho waa ku kaliya waxa laga yaabaa sikiyo nolosha marka aad hadda faraxsan tahay inaad saaxiibo badan leedahay nin dhalinyaro waa tahay caqabadaha noloshu maalin beher bay ku joogtaa laakiin waxa laga yaabaa markay dhib ku timaado inaad kaliya tahay inaad gurigaaga soo xiratid inaad kaliya uydid inay mataqaanaa caqabadaha noloshu maaragtay maalin beher ku taagan tahay runtii waxaan xasuustaa inaan keligay oo cad madow oo aan qofna iga dambeeyay qalin galay oo dhakhtarkii iyo qariyay igu yiri orod maxkamadda warqadka doono si lacala hadii aan dhimato inaan cidna noo ka qabsanin waxaan ogaa hadii xataa aan dhinto inaan cidna iga dambeeynin laakiin kaliya just marka aan noloshayda badbaadinay haddaan badbaadana aan noolaanayo oo ay qornadana halkan ku kulano
haddii aanay qornayn oo aan dhintana aan muxuu ahay tani halkan la igu aaso laakiin markii waqtigaa ka dawanaa ka horreeyey waxaan lahaa qof reer leh qoys leh aabba ah adeer leh ehel leh inkastoo aan madi ahay oo dee wax walaale aanu ila dhalanin caadi inkastoo aan keligay ahay oo qof madi aan ahay yacni oo ilaahay uu ii qadaray dunidan anoo keligay bay hooyaday aabahay dhaleen aniguna hal gabar baan dhalay yani marmarka qaar waxaan isirahdaa nolosha iyo waqtiga iyo waayuhu miyay isku beegan yihiin haddana saasoo ay tahay maaragtay rabbi iyo qadarta kama aanan tegin marka noloshayda informationkeedii oo kooban baan ku siiyey ka saaxiibsi kariya farxad bay ii tahay horta walaalkay intaasaa ii sheegtay aadaan kaaga dhegeysanayay sidoo kalena kolley dadkan way dhegeysanayeen waxaa inoo sheegtay inaa keligaa tahay siday marxaladdan kugu soo dhacdo shil gaari tahay hooyo aabba keligaa ku dhaleen hadduu ilaahay ku yidhaahdo waaya hadda noloshaada waa sidee hooyo aabba ma nool yihiin sidoo kale waxaa kaloo ku weydiinayaa ilmahaaga xaggee joogaan xaaskaaga xaggee joogtaa adiga inta goormeed timid sakariya aad baa umahadsanta horta magaalada waxaan joogaa waan u malaynayaa 4 days 3 days meelaha adu 5 days ma gaadho magaalada ninkaa dhalinyarada ah axmed iyo yar kaloo cabdulle la yidhaahdo waa isoo kaxeeyey oon magaalada ku imiday waxaana ka imiday markii hore muqdisho xaafidda waa beri baan joogay muddo ilmahayga anigu aan dhalay nairobi bay joogaan hooyadii iyo aabahay hadday maanta noolaan lahaayeen dee meesha hadda aad igu timideen keligay fadhiya ma fadhin lahayn waxaa la yidhaahdaa marmarka qaarna xiniyuhu kuwa kugu yaalla maahane waa kuwa lagula barbar joogo yacnihii shalay xiniyaan lahaa malihi laakiin haddii maanta iska badda aabbahay hadday hooyadii noolaan lahayd caqabadaha nololeed keligay ma ahaan lahayn yacni waxaan dareemi lahaa ila dareema ila xanuun noqda hadda qol baan deganahay qolkaa keligay baa seexda oo aniga xalay kuu sheegay markaan taleefonka wada hadlaynay oo aad markhaati ka ahayd waxaan ku yidhi keligay baa seexda keligay baa ka soo kaca xaaladdan maleeshiya oo imida waxay ahayd kow laba qodob baanu imiday inaan caafimaad ka helo caafimaadka rabbi baa baxsha dadaalun baanan nuu leeyahay iyo inaan ku noolaado waayo waddankeena sidaad ka warhayso qofka baahiyaha gaarka qabo kale meel ku noolaada male meeluu mara male bale albaabkaan iska bixi karin iska badaa waxyaalaha kale marka labadaaba maleeshiya waa imiday laakiin caafimaadka iyo dhaqaale igu filan waa aan waayin marka waxaan isleeyahay rabbi baan ka warsugaynayaa ka dhowrayaa marka saaxiib xaaladdeeda waa sidaa ninka dhalinyarada axmed iyo yarka kale cabdalla iyo adinka intiina saadadii ugu dhow dhibtana waxay ugu dhacday 2019 bishii 6aad waxaan u malaynayaa waqti wax laga joogaa 4 sano iyo bar meelaha 4 sano iyo barka intii ka horreysay aan noolaa taariikhda iga soo martay waxaan odhan karaa waqtigayga hore wax taariikh ma aanan lahayn laakiin waqtigaa ka dambeeyay noloshaydu is very hard waxay noqotay nolol aad u adag waxay noqotay nolol tayadeedii hore ka duwan nolol waxay noqotay saaxiibadii aan islahaa dadka way kuugu dhow yihiin aan waayo saaxiibo aanan lahayn oo mataqaanaa aan suran jiray waxbay isuma tihiin oo kale ay dadkii hore iiga dhowaadaan bale to kale ugu sii xanuunka badan ba waxay tahay dadkii xigaalkayga ahaa ama qoyskaygii ama mataqaanaa xigtadeydii inaan waayey taa waxa igaga sii xanuun badnaa qofkii aniga dadka iigu dhowaa ee aan islahaa maanta dadku kuugu dhow yahay xataa inaan waayey oo mataqaanaa isla dhibaatadaas awgeed aan ku waayey sheekay ku timaadaa waxa dhacday subaxii dhibta ay igu dhacaysay aniga habeennimadeedii baan lacag 3 kun soo qaatay 3 kun aan soo qaatay hamigaygu waxa inaan dhulku gato oo sidii nin kastoo dhalinyaro uu ka fikiro maalinba in yar inaan dhiso maalinba darajo ay noloshu taagan tahay maalinba meeshay istaagta la istaag baan islahaa hase ahaatee ilaahay wuxuu u qadaray tii aan anigu qorshaysanayay maahane lacagtii 3 kun aan soo qaatay in aniga dib dhakhtar la igu dhigo taa waxa igaga sii xanuun badnayd oo aan odhan karaa in aniga dadka iigu dhow adeerkaya laga yaabo inuu muuqaalkaygani gaadho waliba de sidaad la socotay wadankii markay dhib dhacdo ama shil gaari uu dhaco qofka moobeelada iyo kabaha dadka markaa ugu dhow aruursado qaata oo markaas 2 moobeel oo meesha gaariga ii saarnaayo wixii iyadoo la iga qaatay oo xataa kabihii qaar la waayey anigoo isbitaalka ku jira oo saaso qofkii garanaya isbitaal national la yiraahdo intuu ii yimiday waana dareemi kartaa qof markaa shil galay oo dhabarka ka jaban dhabarkan ka jabay bira igu jira oo de sariir saar dhabarka bira igu jira
oo sariir saaran xaaladda uu ku dareemi karo ama uu ku jiri karo waa dareemi karaysaa baa intuu ii yimiday buu yidhi taleefankaagii keen xataa ma hadli karayn lacagtaad sariirta ku jiiftid waan ka bixinaynaa yacni waa dhacdooyinka aan is odhan karo ma iloobi karaysid yacni adoo sikiriya maanta sariir saaran oo weliba sawiraanteeda qayb baan ku tusi doonaa oo halkan qoorta kaaga xidhan tahay baashi qoorta gacanta ku duuban tahay dhigbaxaya intuu adeerkaa kusoo dul istaago ku yidhahdo lacagtii sariirta bixi yacni emotionka aad dareemi karaysid ama xaaladda aad dareemi karaysaa way ka duwanaanaysaa xaaladaha nolosha ninka aniga sidaa igu leh waxaa laga yaabaa xoogayga kala bar over almost 10 years inuu cunayay yacni waxaan kaaga gol leeyahay badanaa dadkeenu waa indha ku garaad leh markaa xaaladda markaa taagan bay qiimeeyaan uguma eegayo qofkani waa xigtadaada ama waa xigaalkaaga wax kaloo meesha taalla waxay ahayd in anigu inaad tiktok iyo kusoo aragtaan u malaynayaa fideogaad iga soo raacday aad aragtiisay gabdhahan anigu walaalahayo adeerkay u dhalay oo mataqaanaa iskuulkooda aanu bixinayay markaan soo istaagay la jiray orda walaalkiin salaama yacni waa waxyaalaha xasuusta ilaa aanan iloobin oo walaalkiin u taga oo markay wax u baahdaan la yidhahdo walaalkiin wacda bale markii aniga aan dhakhtarka laga soo saaray guriga la keenay guriga layrka guriga xataa la imi shidi jirin hadduu gobol ku dhaco saas ku dimi jiray in marmar mooyaane markaan damco inaan banaanka u soo baxo ama aan daaradda soo fariisto oo kale oo dee mataqaanaa aan hawo bedeshto ama oksijiinka aan iska bedelo in laygu dhahdo guriga gabdhaha jooga waa hadda kuwii anigu shalayaan lalahaa walaalkiin u taga yacni booqda lalahaa in la yidhahdo gabdhaha daaradda fadhiya markay gabdhuhu tagaan ama xaroodaan baa banaanka lagu soo saaraya su-aasha aan isweydiiyey baa waxay ahayd shalay orda walaalkiin u tagaa lalaha beforkii afterkiina adigaa lagaa ilaalinaya yacni dee u malayn maayo qof dhalinyaro ah xaaladeedo kale soo maray inuu jiro haddayna waan iga kuudha xiniyuhu marmarka qaar kuwa kugu yaalla maahan waa kuwa dhinacaaga yaalla yacnihii haddaan idhaahdo qisooyinka noloshayda waa ka sheekeynayaa xanuun badan bay leedahay marmarka qaar guriga anoo iska joogo keligay aba saa u fikirayo waagu ii baryaa soo fahmi marmarka qaar inaan intoon tiktok imaado tiktoka muddo yar baan ku jiraa dadkaas aan muuqaaladeeda usoo gudbinayo waxaan ugu soo gudbin keliya inaad jasta ku nefiso maaha inaan adduunye kale iyo wax kale iyo yacnihii mataqaanaa inaan magac ka sameeyo yahay marka yacnihii dhacdooyinka ugu xanuunka badan la waxaa ka mid ah in aniga qof marmarka qaar waxa ugu daran dadka xigaalkaaga ah cadowga waxaa laga yidhahdaa banaanka jooga iyo kan sokeeyahaaga ah marmarka sokeeyahaaga daran qof aniga xigaalkayga oon is odhan karo dadka boqolkiiba boqol uu kugu dhowaa waa dhibta markay dhacday baa waxaan ka horey dharkayga baan u baahnahay markaa hargeysaan joogay niman dhallinyaraa baa ila joogay wuxuu igu yidhi hadda iminka lugihii baad beeshay oo ma socon karay sida saraawiisha makaa reebtaa yacni haddaan ku idhahda sikiriyo walaal waan kaaga sheekaynayaa qisooyinkayga waxaa laga yaabaa inay ilinkugu soo istaagto mafahamti kole yacnihii nafla xanuunkii iyo lafla caarigii baa malaysia iga soo turtay saaxiib insha allah biidnillahi kariim be happy insha allah waxaa waaye horta wax kasta adduunku way dhacaan wax kasta adduunku way dhacaan waxa uun adduunka dhacaynin oo laakiin ilaahay uun awooddiisa ah in rag la yidhaahdo waa fool oo u dhalaya un baan dhacaynin ma fahan marka horta wiilkan walaalkay ah noloshiisa sheekadiisa qisadiisa meeshuu joogo halkuu ku dhaqayaa inuu jiro inuusan jirin kama horhayn adiga waa markii iigu horreysay oo xala arkay ahayd waa liigu soo meeshangareeyey saa anoo hurdo isku diyaaroo seexan rabaa qaybta tiktok anoo iska daawanaya meeshan iskaan fiiriyey wiilkan walaalka ah malaysia kula joogaaye nio bal raadi waa ku soo raadiyey waa kula soo hadlay ilaahay amarkii wax yar kadib waa ii soo jawaabtay sidii baan isku heleelnay horta walaalkaygiiyo adduunkan waxaan la arkaynin ma lahan waxaan la maqlayninna ma lahan anigana sidaa xala kuu sheegaya adduunka ilaahay waxaan ugu necbanahay inaan arko qof walaal ah ama qof dhibaataysan ama qof xaaladda ku adag tahay ama qof ilaahu yuusan waxbana dhib haysanin at least una adu murugaysan inaan arkaan adduunka ugu necbanahay
fahmaysaa adduunka ilaahay waxa ugu nacbanahay qof marxalad adag ku jira inaan arko noocee rabta ha ahaato ha yaraato ha weynaato marka waxaa la joogtaa dad walaalo ah oo ku jecel waxaa la joogtaa oo halkan kaa daawanayo oo haddeertaan kusoo dhiirigelinayo comment kuu soo qorayo kugu faraxsan maanta kugu horeyso ay ku arkaan ama ha ku arkaan hore ha ku arkaan laakiin si kastay ahaataba kuu muujinaya walaalnimo ma fahmaysaa oo halkan aan ku haysto oo aan ogahay waxay yihiin waxay galo gudaan haddii maalin un aan codsi idinka codsaday oo codsigaygu uu idinku batay haddii maalin un aan kaa farxiyey oo farxaddayda yacni ama maalin un dhoola caddeyn adiga afkaa ka imaatay aan sabab u ahaa ama maalin un waxay ahaataba ha ahaatee maalintaada kuu qorxiyey ama aniga madaxayga ama ilaahay dartii waxaasoo idil waxaan ka sheegay ilaahay dartii baa ka weyn waxaa ilaahay dartii kaaga codsanayaa oo adiga i daawanay aan kaa codsanayaa si walaalnimo ah ixtiraam leh soomaalinimo leh wanaag leh weji leh waxaan kaa codsanayaa inaa wiilkan walaalkay ah youtube-kiisa waxaan soo dhigay qaybta commentiga markaa ku dhufato waa arkaysaa waxaan ilaahay dartii kaaga codsanayaa oo xushmad iyo walaalnimo adoo ii muujinaya aan kaaga codsanayaa inaad subscribe u saarto haddii videogayga ay daawata 20,000 waxaan idinka codsanayaa ilaahay baan tala saartay ilaahay baana tala u dhiibtay waxaa jira dad intay muuqaalkaaga daawadaan codsi aa u fushitay ama codsi aa u dhiibatay kaaga tagay waxaa ilaahay dartii idinkaga codsanayaa inaad subscribe u saartaan ilaahay dartii fadliga ilaahay idinkaga codsada yacni wiilkan walaalkay ah arrinta uu ku jiro ninkaa dhallinyarada oo quruxda badan oo maasha allah oo haddana waxaa waay marxaladda ayada ku jiro wuxuu u baahan yahay waa dhiirigelin walaalnimo xushmad qadarin kor u qaadis ma fahmaysaa walaalkay waxaan waa hawle iska adduun ma fahmaysaa nafis waxaa rabto ummadda soomaaliyeed u sheeg wixii kuu haray oo kuu dhiman nala wadaag insha allah codsiga iyo waxaa markaa hadda kasoo gudbo waxaan rajaynayaa marar badan inaan saaxiib channelkaaga kasoo muuqdo marar badanna mataqaanaa maanta marxalad ka duwan inaan ku kulanno insha allah biidni illaahi alkariim waxaan ku weydiinayaa malaysia yaa hadda kuu joogo yaa kula degan 4-5 maalin markaa joogto malaysia yaa kula degan yaa kugu hayo yaa cuntada iyo wax fudud kuu keena ama ku caawiya ama garab ku siiya markii labadan qof laga soo tagay iyo qofkaas yaa malaysia ku keenay sidee ku timid yacni bal inooga sheekee aad baad u mahadsantay walaal Sakariyow horta wiil Cabdulla la yiraahdo baa warqadda waddankan ku soo galay ii soo saaray aniguna sidaan markii hore kuu sheegay baa waddankan laba shay baan u imiday inaan ku caafimaad ka helo iyo inaan ku noolaado horta labadaa wiil mooyaane wax faamila iyo wax ehela iyo waxaan odhan karo waa xigaal iyo xigto midna iima joogo suma fahmin magaaladan aniga keligay iyo alla subxaana watacaala iyo labadaa wiil iyo adigoo aan isbarannay keliya mooyaane wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi inaanu qof kale ii joogin labada wiil mid ka mid a maanta soomaaliya aaday waxaa hadhay waa yarkaa kale bis qof kale oo xigta ama xigaala waana sina hore kuu sheegay yacnihii dadka iigu dhowaa markaan waayey waxaan noqday qof habow waxay soomaalidu u fahmaysa yacnihii qof dheeldheeli oo kalaa noqday yacni qof aan dooran karin baan noqday nolosha meesha u roon iyo meesha u xun caqabadaha noloshay ka mid tahay yacnii qofka mataqaanaa maanta ku caawiya ama berri ku caawiya waxa laga yaabaa maalinta afraad inaanu ku caawinaynin oo mataqaanaa waxaa la yidhahdaa baahidaadoo badata iyo bugtadaadoo badata dadku way kugu nacan maleeshiyana sababta i keentay baa waxay ahayd bal inuu nolosha bedel boosaan ka imiday garow waa imiday garowa waa ku hayn waayey cararkii muqdishoaan imiday muqdisho xaalada badan baan kala soo kulmay oo muuqaalka kale aan kugu sheegi doonaa in moobiladii aan watay kaamirada aan watay laabtoob aan watay xataa layga dhacay waqtii aan guriga la deganaa iga xaday waan islahaa saa aniga ii gelaya nin aniga boose igula noolaad buu ahaa 2 sano wax ku dhow qof aan ka filan karin iyo qof kale maysan ahayn sidaa ii sheegtay horta qoraxdana way sii dhacaysaa oo iftiinku naga sii yaraanaya haddeertaan waxaa wax duubaynana waa galabnimo haddii wiilkan sheekadiisa ama kolley waa nin taariikh fara badan iyo xanuun fara badan iyo waxyaabo fara badan halkaa ku haysta fahmaysaa laakiin saasay tahay
kaamirada inuu keligii la sheekaysto ma ay qof soo ag fadhiyo weli maysan kasoo wada muuqanin haddii ay soo codsadaan oo ay qaybta commentiga ku soo qoraan noloshaada xanuunka badan haddii ay soo codsadaan oo ay dhahaan wiilka sheekadiisa qayb labaad ka soo samee waa ku soo fadhiisin doonaa oo waa ku keeni doonaa haddii ilaahay idmo waa ayaga xaggooda hadday soo codsadaan waxa waaye marka aboowe insha allah waxaa rajeynaya meesha ku aragtaan inaad dhiirigelisaan oo yarkaa walaalkeen ah dhabarka biraha uu uga jiro wiiljeerkaas uu ku fadhiyo garab aan haysan walaal aan haysan Malaysia keligii joogo cidna aan soo dhaweyn cidna aan laboorkaas ka keenin qofna uusan halkan ka aqoonin keligii uu yimid uu iskeenay Soomaalidana meel walba dunida ka joogaan waa isku damqadaan hal iyo lababa Ilaahay ka dhigay inta isku damqanaysa wiilka walaal aqoon baa u leeyahay waa qof fiican asagana ajri xasanad Allah ka siiyo anigana walaalka baan ahay waan ka yarahay laakiin wax kasta oo caawimaad ah yaani ilaahay hortiina xalay waa kugu sheegay dadka hortoodana waa kugu sheegay ma fahmaysaa inaan aniga diyaar kuula ahay oo aan macnihi aadan war waxa doonto aad dhihi karto aad bacal xilliga doonto ilaa 10 saac weyn ma noqotay soo kac kala waxa u baahanay ay dhihi karto ma fahmaysaa marka ummadda Soomaaliyeed isku naxariisano aan isgarab galno wallaahi oo billaahi oo tallaahi codsiga amaanta idin dhiibtay weligii Allaah YouTube kama dhex dhiibanin oo igu wallaahi ah ma fahmaysaa wiilka walaalkay YouTube kiisa 10 kun oo maraya Ilaahay dartiis iyo aniga dartay iyo asaga dartiis oo marxaladda uu ku jiro waa hamiyo kale YouTube ka qofku markii dhinac uu ka karkaro dhinacna uu inuu iskaga nafiso jeceliyaa aboowe YouTube kiisa 10 kun buu maraya iyo 11 kun waxay ahaataba Ilaahay dartii waa inuu ku kalsoonahay subscribe iigu saara insha Allah sheekadiisa qaybta labaad oo Muqdisho uu yimid ilaa intii wixii Muqdisho dhacdo ka qabsaday qofka hadda uu sheegay oo ka dhacay wixiisa iyo equipmentigiisa alaabtiisa ilaa Muqdisho gudaheeda wixii ka sii qabsaday ilaa inta markuu imaaday wuxuu sii rajeynayo waxyaabo fara badan xanuuno fara badan oo asaga niidiisa ku jiro waxa jirta wax aan ii sheegay oo taleefanka iga sheegay oo macala hadda xataa inuu ilooba laga yaabo oo insha Allah idin sheegi doono idinkana haddii aad arintan keera calool xumaateen ka raali noqda waa walaal waa saaxib anaga dadka iskugu dhow ma fahad walaalkay qaali ah soo dhow waa kule soo dhow boqolkiiba boqol soo dhow bamsa boqolkiiba boqol soo dhow hadda laga bilaabo aniga asaga meeshaan isla shidanaynaa maqaayadani horta waa ku daawan jiray sax dadka ku daawadan kamid ahaa laakiin marna isma lahayn waa wada kulmaysan waana gadgadoonka waayaha la yiraahdaa waa saaxib markii hore ku sheegay nolosha dhinacaad ka filinaysaa dhan kale wax ka siinaysaa marka waa ku faraxsanahay walaal qaali sharaf bayna ay tahay qof aad u qalbi wanaagsan baa tahay jazakallahu khairan xalay marka ila soo hadashay qalbiga wallahi ii qaboobay marka farxad bay tahay muuqaalkeena intaas ku yahay insha Allah wixii qayb dambe loo baahdo diyaar baan ku ahay insha Allah dinka waa iska xishoonayaa kaamirada laga xishoonayaa markii ugu horreysay kaamirada soo fadhiisan ma sha Allah waan waraysi bixiyo marar kala duwan waa laga yaabaa inaad dad ila yimaadeen xaaladda horta Muqdisho iga soo martay sida saxda ah marka xataa Muqdisho joogay uga maanan hadlin oo taqaanaa yaani dib male muuqaalka dambe haday ayaga ay dhahaan diyaar aan nahay wax kasta oo Muqdisho ku jiro waa la kala filkaa marka waa baqay xamar aan joogay laakiin hadda wax kasta waa ka hadli karaa marka alxamdulillah rabbil alamin muuqaalka baarto loo baahdo insha Allah diyaar waay Malaysia inta joogto tii rabbi u dhimanaysa ma ogiye qof intuu ku imaado saako ma dhihi karo ma fahmaysaa halkan sharci waxba jiro wax kale oo idin dhaheena malahan aniga iyo walaalkii oo idin le bye bye